kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. bismillaahi raxmaani raxiim. madaxweyne Biden ilaalinta soo galeytiga Haitiyaanka, dib u soo noolaynta deegaanka iyo isticmaalka telefoonada gacanta ee dugsiyada. asalaamu calaykum daawadayaal. taas waxaan qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan maanta oo Jimcaha bisha Luuliyana ay tahay 12. waxaan halkan idinku soo gudbinayaa anigoo ah Maxamuud Xasan. haddana kusoo dhowaada wararkii oo faahfaahsan. madaxweyne Biden Barsaabka Maine Janet Mills ayaa waxay ku celisay taageerada u hayso madaxweyne Joe Biden xilli uu isagu waajahaya su'aalo la xiriira da'diisa iyo kartidiisa uu ku qaban karo xilka madaxweynenimo. Dhowr ka mid ah dimuqraadiyiinta la soo doortay ayaa iyagu ugu baaqay madaxweyne Biden oo 81 jir ah inuu ka caro tartanka madaxweynenimada kadib markii uu si liidata u soo bandhigay doodii ugu horreysay ee dhex marta isaga iyo la tartamaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump dabayaaqadii bishii aan soo dhaafnay. Janet Mills oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyadu waxay sheegtay inay sii wadi doonto taageerada u hayso madaxweyne Biden. madaxweynaha ayaa ilaa iyo hadda isagu diidan baaqayo kaga imanaya xisbigiisa oo iyagu markaas ku talinaya inuu ka haro tartanka, inkastoo ay sii kordhayaan weli walaaca ay qabaan qaar ka mid a xisbigiisa dimuqraadigu. ilaalinta soo galeytiga Haitiyaanka ah. maamulka Biden ayaa isagu wuxuu kordhiyey muddada rukhsada xagga sharciga ah uu u kordhiyey ku dhowaad nus milyan muhaajiriin Haitiyaana oo iyagu ku sugan Mareykanka. maamulku waxa uu isticmaalay siyaasadda ama nidaamka loo yaqaano xaaladda ilaalinta ee ku-meel gaarka ah, loona soo gaabiyo TPS, taasoo u oggolaanaysa shakhsiyaadka ka socda waddamo cayiman inay si sharciya ugu noolaan karaan ugana shaqaysan karaan Mareykanka, maadaama ay khatar tahay inay ku laabtaan waqtiga xaadirka waddankoodii. soo galeytiga Haitiyaanka ee horey joogay Mareykanka waxay hadda xaq u yeelan doonaan muddo kordhin TPS-ta ah oo 18 bilood oo kale ah. maamulka ayaa sheegay in Haiti ay weli ka jiraan dhibaatooyin ay ka mid yihiin masiibooyin dabiici ah, macaluul iyo weliba rabshado baahsan. dib u hagaajinta deegaanka. in ka badan 10 mashruuc oo horumarineed oo deegaanka ayaa ka socda webiga Penobscot oo laga nadiifinayo wasakhda meerkuriga. mashaariicda waxaa lagu maalgeliyey qayb ahaan heshiis sharci ah oo lala galay milkiilihii hore ee xarun kiimikada lagu sameeyo oo u dhoweyd webiga. shirkaddu waxay oggolaatay inay bixiso $20 milyan oo lagu taageerayo ilaalinta ama nadiifinta webiga. qabiilka Penobscot waxaa kale iyaguna heli doonaan lacag si kor loogu qaado tayada biyahooda iyo wacyigelinta ku saabsan sunta kiimikaalka loo yaqaano meerkuriga ay u yeelan karto kalluunka iyo weliba duurjoogta. shirkadda waxaa laga rabaa inay bixiso ugu yaraan $187 milyan. telefoonada gacanta ee dugsiyada. dugsiyada degmada Bath ayaa waxaa iyagu noqdeen kuwii ugu dambeeyey ee mamnuucay isticmaalka telefoonka gacanta inta lagu jiro waxbarashada. guddiga dugsiyadu waxa uu meel mariyey siyaasaddan cusub bishii hore, iyada oo xubnaha qaar ay sheegeen inay muhiim tahay in lala dagaalamo balwadda tiknoolajiyada oo gacan ka geysata sida ay sheegeen xanuunada dhimirka ee ardayda. degmooyinka Augusta, South Portland iyo Westbrook waxaa iyaguna dhowaan soo rogeen mamnuucid tan oo kale ah. qaar ka mid a mas-uuliyiinta dugsiga ayaa horey waxay u sheegeen in ardaydu ay waxbarashada u soo jeedsadaan kuna howlan yihiin fasalka iyo waxqabadka waxbarashada marka ayna haysan telefoonada gacanta. bishii hore ayaa sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah xafiiska caafimaadku wuxuu ugu baaqay sharci dejiyaashu inay digniin geliyaan baraha bulshada ay uga digayaan ardayda sababtoo ah uga digayaan waxyeelada ay u geysan karaan caafimaadka maskaxda isticmaalka baraha bulshadu. markaad nagala socoteen waa Maine Public News Connect. intaasi sarag dambe waad mahadsantiin. asalaamu calaykum. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey shakhsiyaadka iyo hay-adaha taageera oo ka kala yimid dhammaan dhinacyada Maine iyo weliba Koo iyo Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing iyo IDEX. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey Patricia Ewan oo ku howlan
soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Wanajia. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wadajir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aanu nahay Main Housing waxaan ogsoonahay in lahaanshaha guryuhu ay yihiin furaha horumarka. barnaamijkayaga iibsiga guriga ugu horeeya waxa uu leeyahay deyn dulsaar hooseeya leh iyo kaalmo lacagta horumariska ah ee guryaha qolalka badan leh. faahfaahin dheeraad ah ka ogow mainhousing.org. waxa aad isbarbar dhigi kartaa caymisyada waxaanad ka heli kartaa kaalmo dhaqaale coverme.gov oo ah meel laga helo caymiska caafimaadka ee la raqiisiyey si aad hoos ugu dhigto qiimaha aad bixinayso. shaqo wanaagsan baa halkan laga helaa. barnaamijka Main Apprenticeship Program waxay ku siinayaan shaqo ku tababar lacag lagugu siinayo. wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir main.gov/apprenticeship.